بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. waxaan jeclay maanta inaan hambaliyeeyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland soo majeesayaasha xaq u dirarka sanad guulada 2020 waxaan leenahay hambaliyo ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala inaan wanaag sanadkaas ku xiga iyo barwaaqa dalkeena iyo idinkaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu xigsiiya. ciidamada Soomaaliland ma qabtaan oo kaliya difaaca qaranka, waxay kala qabtaan nabadgelyada. meel kastoo shaqo jirto ciidamada ilaaliya nabadda waa ciidamada qaranka. waa institutionka maanta nation building ku jirnay iyo institution building ku jirnay waa ciidanka institutionka ilaa hadda sidii aan rabnay u shaqeynaya. waa ciidanka iyagoo aan ogahay inaan mushaharkooda yar yahay haddana si hagar la'aan u shaqeeya. waa ciidanka meel kastoo joogaan shacbiga wax dhibaato ah aan laga soo sheegin. waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa xildhibaanada cusub ee la soo doortay oo mushaharkii u kordhiyey 30%. intaa in ka badanba waa xaq baa ku leedihiin, laakiin insha allahu tacaala kolba soo dakeeno dhaqaalihiis u koro ayaa idinkuna dhaqaalina u kori doona. waxaan jecelahay in insha allahu tacaala guriga laydin sameeyo, caruurtiina waxbarashadooda lagu dadaalo, kootiin gaar la siiyo. isla markaa waxaan jecelahay insha allahu tacaala in ciidamada badda aan dhisano. xeeb dheer baan leenahay, inaguma filna. coast guards wax la yidhahaa navy baa inagu filan, ciidamada badda ayaa nagu filan insha allahu tacaala waan samayn doonaa. waxaan leeyahay ciidamada qalabka sida Somaliland ka fogaada siyaasadda foosha xun ee hadda ka socota dalka ee kala qaybista ah yaana idin dhex gelin arrintaas. ilaahay cudurkaa ka soo butaacaya madaxtooyada ee qaybista kala qaybista iyo qabiilka iyo eexda ilaahay ka badbaadiyo subxaanahu wa tacaala. waxaan kalmad inaan soo hambaliyeeyo wadamada gacan saarka aan leenahay ay naga qaaweeyaan dhaqaalaha iyo doorashooyinkaba baaqi ay soo saareen. madaxweynaha waxaan leeyahay Somaliland chance fiican bay leedahay, opportunity fiican baa inoo muuqata, haynaga dili maale. waxaynu iibin jirnay in adduunka kaga caan noqonay ee gees ka noqonay waxay ahayd dimuqraadiyad, dastuur ilaaliyo, wada tashi ku soo noqon kule wadada wanaagsaneed ku soo noqon kule. doorashada qabo madaxweynaha taguurto ka tashan doona insha Allah tacaala wada tashigi iyo dastuurkii waxaan ku soo caana maal ku soo noqon. hadda muuqata in dastuurkana ka leexatay wixii aan ku soo caana wada tashiga ka leexatay. aanan ogeyn safaradaadii waxay ku saabsanaayeen, waan ogeyn safarada Djibouti loo tagay waxaan ku saabsaneen. xaq baan u leenahay inaan ogaano dalka wax ka socda, securityisa iyo intelligence-kooda iyo arrimaha dibadda. haddaynu kala tashano dalku saa ku fiican maayo. waana talada dhulka dhigtaa. waxaan baada ku soo gawaabinayaa janiska inaga lumin, ku soo noqo dariiqii aan ku caano maalin ku soo noqon kule waan kula talinayaa ku soo noqon kule. dalka ka daa buuq aan loo baahnayn, dalka ka daa qaybis ka daa, dalka ka daa eexda ka daa, dalka ka daa qabyaalada ka daa. madaxweynaha tahay waa lagu ixtiraamay,
waana ku ixtiraamnay si madaxweyne u dhaqan baan ku leeyahay sida madaxweyne oo mas-uula u dhaqan baan ku leeyahay kama muuqata hadda mas-uulnimo kama muuqato dal la wada leeyahay kama muuqato vision madaxnimo kama muuqato ilaahay waan ka baryaa ilaahay wadada toosan kugu soo rida asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu